idin haysto saaxiibayaal ee aad u kala cararaysaan ee aad u kala tegaysaan wax kale ma ahan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتم وناكسن داوديال halkani waa xiisaa wararka ku soo dhawaada barnaamijyada alaaba xilligan oo kale aan si toos ah idin ka soo tabino stuudiyaha xiisaa wararka ee magaalada Nairobi waxa ila jooga Koronto bar waxaan eegi doonaa waayahan dambe waxyaabaha ka soconaya social media gaar ahaan maxaa sababa hadal haynta la xiriirta lamaanayaal hore caan u ahaa YouTube ka ama social media in markaas la shaaciyo inay isfureen ama ay kala tageen arrimahaas maxaa sabab u ah yaa ka dambeeya xilligan maxaa soo kordhiyay arrimahaas ayaan eegi doonaa waliba lamaanayaal qaarkood caan ah oo si aad loo yaqaano oo ay ugu dambeeyay la hadal hayay in ay kala tageen iyagoo qaarkood waliba qiray in ay kala tageen oo xilli hore ay kala tageen haatanna ay leeyihiin xiriiryo cusub iyo hasaawo iyo sidoo kale kuwa iyagana wali aan si rasmi ah u shaacinin inay kala tageen arrimahaas ayaan rabnaa bal inaan eegno daqiiqadaha ina soo aadan waxaa ila jooga Koronto soo dhow waad mahadsantahay cabdiqaadir cumar cabdulle kuwaaral guud ahaan bulshada Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh caafimaadku waara waqtiguna ha idin wacnaado waayahay arrintan horta niyahow laba maalin social mediaha horta runtii barnaamijyo badan anaga waa ka qabanay maantana si hoose deeply ah ayaan jecelnahay bal inaan u gorfeyno oo aan maxaa u analyze gareyno furiinka dadka caanka ah ee social mediaha magaca ku leh waxaad moodaa horta youtube-yadana qayb ay ka yihiin buunbuuninta arrintan horta intaana wax walba u gudagelin waxaan rabaa inaan bal talo iyo tusaalo dad badan oo guurdoonahaa jiro ayagana inaan tusaalooyin halkan aan uga soo tabino dadka isqaba ee social mediaha isticmaala ayagana inaan taliyo iyo tusaaleyno laakiin marka ugu horeysa bal arrimihii ugu dambeeyey ha inoo dulmaro cabdiqaadir cumar cabdulle waayahay Koronto waa mahadsantahay waxaa jiray lamaanayaal horey caan ugu ahaa social mediaha sida Facebook iyo YouTube-ka iyo meelaha kale la soo galo baraha bulshada idil kuwaasi oo la sheegay in ay kala tagooda lama sheegin laakiin waxaa la sheegay in gabar ka mid ah wiil caan ka ah social media uu qabay oo lamaantiisa ahayd waxaan u maleeyaa liicaatay iyo xaaskiis sumay in macnaha ay u gudubtay in wiilka oo Muqdisho jooga lagu eedeeyay in uu ku xadgudbay qoyskaasi waliba gabadhaas iyada oo la qabayna dadka muhubin laakiin saacadii ugu dambeeyay ayaa labadoodaba gabadhii iyo wiilka lagu eedeynayay Muqdisho joogay ay soo hadleen si toos ah macnaha marka waxay sheegeen xiriirkooda xilliga uu bilowday inay kala tageen ninkan liicaata ah inay kala tageen kadibna ay bilowday xiriirka in wiilkaas la yeelato wiilkaasina inuu sabab u ahayn in ay labadan qoys kala tagaan dad badan baa macnaha ka kor dhacay waxa la guriga dumisay kacbada gubtay saan in kar Allah ku rido saacad muddo ayaa maalmo ugu dambeeyay la eedeynay waliba la habaarayo wallahi macnaha adaa dumiye laakiin waxay ay shaaciyeen xalay in labadooda macnaha xiriirkooda uu gaar ka ahaa arrinkaani inkastoo wali kama hadlin aniga wacay lambarkiisa halkaas hase ahaatee waxaan rabay inaan bal muxuu ii sheeg wax ka wareysto hase ahaatee mana rabin inaan muxuu social media aan keene waxaan rabay si hoos oo saaxiibtinimo inaan u wareysto balse ilaa hadda wax xaqiiqo ah oo arrintaas loo haayo habeerataa ma jiro social media baa buunbuuninayo asaga xaggiisa hadee yaa furiinka haayo asiga laakiin kama uusan hadlin asaga furiinka haayo asaa wax furo asagana muxuu laakiin ayadoo waxay sheegtay inay kala tageen waliba muddo ka hor khilaaf uu jiri karaa si hoose uu jiri karaa waana iska haween oo muxuu ii sheeg marka alla markii ay wax qoonsadaan ama ay wax tabanayaan kuleetigaas inay isaga dhigaan waa awoodda kaliya oo ay leeyihiin sidaas oo ay tahay markay wax tabanayaan in laga qanciyo ayaa aad u qurux badan intay qabasho leedahay haddii mugdi yar uu jiran in la xaliyo ayaan rajeynayaa dadka xallin kara ee si hoose uga dhow labada dhinacna inay bal isku dayaan inay wax xaliyaan waan rajeynayaa sidoo kale waxaa aad loo hadalhayay rasmi raisi farxaan oo social media aad u buunbuuninayo warar kala duwan muxuu ay sheegay ka soo baxayaan sidaas oo ay tahay ani cabdiqaadir cumar cabdulle wax xaqiiqo ah oo aan marka laga soo tago social media aan u hayno ma jirto sidaad la socotaan annaga inta badan dhacdooyinka kuma degdegno arrimaha la sheego kuma degdegno wax aan hubno ayaan jecelnahay haddii sida social media qaarkood ay u shaqaysanayaan u shaqayn lahayn gaari cadan Nairobi ku wada lahayn beensa idinku afuufeen waxaanan jirin qof aan iska soo qabsanayna waa jeexeena laakiin sharafkeena iyo sumcadeena iyo waxa anaga aan nahay ayaa ka weyn bari social media laga raadiyo
qiimaheena ayaana muxuu ay sheeg mar walba wax walba inaan ku cabirna aan jecelnahay marka arrimahaas waxay ahaayeen cabdiqaadir way ugu muhiimsan isla dhacdadaasi oo rasmarees iyo xaajigeeda inkastoo si rasmi aan loo haynin oo labadooda macnaha waa kala tagnay ama waa wada joognaa isla laakiin waxaan ku ognahay inay wada joogeen oo ay reer lahaayeen inkastoo xalay ay soo baxayeen wax sawir ku aadan oo micnaha ay sheeg ayada naftirkeeda cidda soo dhigta aan la xaqiijin karin aniga naftirkeyga aan ka yara mashquulsanaa in micnaha bye bye Hargeysa iyo waxay soo dhigtay qayb ka mid social media laakiin ma aha Facebook iyo baarka Instagram ma aha laakiin waxa ay sheegtay inay u mahad celinayso dadkii hore ugu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa sidoo kale waxa ay u mahad celisay inay abuurtaa xitaa ilaa hadda lama hayo naftirkeeda laakiin ayada hadlayso shakhsiyan ayada afkeeda ku hadashaa okay taas waa lagu markaas waxa ay sheegtay marka waliba waxay tiri hadda ma rabo inaan hadda laakiin markaan Nairobi tago oo halkaas aan tago ayaa macnaha waxaa shaacid doonaa si rasmi ah waxaa jiro oo su'aalaha soo weydiinayseen oo idil aan ka jawaabi doona laakiin hadda macnaha ma rabo inaan wax sheego waxa asxaabtii ugu soo dhaweysay Hargeysa way maasan yihiin waliba iga sii dhaweyn doona saacada socod kale inay ka baxda laga yaabaa asxaabtii ugu soo dhaweysay haddana iga soo gootinaysa adag u dhigtay haddana iga soo gootinaysa way maasan yihiin wixii jira markaan Nairobi tago to alla idmo ayaa iyadoo faahfaahsan xalay ay saxalay ha aniga bilac kale usii gidilaa markaas maxaa ay sheeg xalayna siinaan ku jiray waan jiifay cabdiqaadir horta social media dadka ka shaqeeyo dadka caanka ah lamaanayaasha aan horta ma diidanin anaga laba lamaane intay soo fadhiistaan muxuu ah social media si caadi ah bulshada noloshooda jacaylkooda iyo arrimahooda caadiga ula wadaagayo muxuu ahaa janaalo badan oo ku dayasho mudan ayaa jiro sida quruxda qoyska oo kale sida laakaha media oo kale muxuu ahaa janaalo badan oo waxaa jiro ay leeyihiin lamaanayaal Soomaaliyeed hase ahaatee aan inta badan muxuu ahaa sheeg waxyaabaha qaar aanan soo tobinin cabdiqaadir arrimaha maanta aan rabo inaan ka hadlo ayaa waxa ay yihiin oo aan u soo qaadanay arrimahan social media ka cusub waa inay cusub yihiin unbaa idinla wadaagaynay laakiin muhiimadda waxay tahay waxaa jiro il bini aadan ilsha bini aadankana waxaa la yidhahdaa buur bay dumisaha la yidhahdaa waxaa jira dhalinyaro fara badan oo guurdoona wiilal iyo gabdho isugu jiro social media dadka daawado oo dhan muxuu ahaa dad la qabo gabar la qabo iyo wiil muxuu ahaa islaam wada ahan waxaa arkayo gabadhan aad soo fadhiisay social media ama adigan soo fadhiista social media waxaa ku daawanayo qof aanan guursan qof adiga wax ka qaldan yihiin xitaa suurtagal in muxuu uu ku daawanayo adigina xaaskaagii ama muxuu ay sheeg ninkaagii ayaad muxuu social media ku faanaysaa ishiisa waa ay kugu dhacaysaa okay marka isha bini aadanka ay qofka ku dhacdo maxay saameynaysaa waxay saameynaysaa tusaale ahaan haddii ubadkaaga aad soo dhigto meesha ishaas ubadkaaga haddii ku dhacdo wuxuu ka dhaxlayaa xanuuno kala duwan isla maalinka ku xigto inuu xanuunsado muxuu ahaa haddii nin naagtiisa isha ay ku dhacdo waxay ka dhaxlayaan in ugu dambeyntii labadooda ay kala tagaan sida aad aragteenba boqolaal muxuu ahaa isheeg midda kale cabdiqaadir furiinkan maalin iyo habeen ayaa la isfuraa wax cusub maaha guurka sida muxuu loo jideeyay ayaa furiinkan asagana xal looga dhigay marka labada qofood ay muxuu ay sheeg ay muxuu xal waayaan waxaana aad u qurux badan in marka ugu horeyso labada qofood ay isku dayaan inay ayaga isxaliyaan wax badan markay isxalin waayaan qofka ugu dhow in loo gudbiyo in markaa kadib 3 mar 4 mar markii khilaafkooda uu soo bato in oday ama waalid ay markaasi gaarto aniga inta badan dhalinyarada waxaan ku dhiirigeliyaa inta hoose loo xalin karo in loo xaliyo marka cuyuunta markay qofka ku dhacdo labadii qofood ayaa isnacaayo iska hor imaanayo mana aaminsana ayaga in il bini aadan ay hayso isha bini aadanka saameynta ay leedahay cabdiqaadir waxaa kamid ah iskaba dhaaf nin inaagtiisa iskaba dhaaf annagan hadda idinla hadleyno ayayna saameysaa mararka qaarkood laakiin waxyaabaha aan isku badbaadino ayaan rabnaa inaan idinla wadaagno waxaa arkaysaa shaqadii oo dhan ayaa kaa hor imaanayso ma rabtid inaad video duubtid ma rabtid inaad telefoon ka jawaabtid ma rabtid inaad meel shaqo aadid ma rabtid inaad muxuu ay sheeg wax dhan aad qabatid waxaa rabtaa keliya inaad jiifatid inaad soo kacdid adiga lazy nooc min al-lazy number 1 baac number 1 aan noqonaysaa marka aad aragtid inaadan shaqo diyaar u ahayn marka aad aragtid in culays fara badan uu ku saaran yahay
horta xarigii ilaahay qabso markuu ugu horeyso dhammaanteedna waa loo baahan yahay inaan muxuu ahay sheeg alla ku xirnaano wactasimuu bixablillahi jamiican marka culayskaas markuu kusoo fiilo il bini aadana ku hayso maxaa uga gudbaysaa haddii aad tihiin lamaano isqabo oo shaqadii iyo micnaha adinkii laftirkiina aa aragtaan qur-aanka alla subxaana watacaala wuxuu isugu jiraa 3 qaybood qayb waa dastuur qayb waa muxuu ahay sheeg qisooyin qaybna waa daawo oo in muxuu ahay sheeg laisku daaweeyo laisku aqriyo loogu talagalay marka iyo qaybo kale isugu jiraa iyo xukunkii iyo muxuu ahay sheeg marka waxaa la rabaa inaad shidatid qur-aan adigan isku aqrisid youtube-ka markaa gashid waxaa ku jiro isha jinka sixirka oo muxuu ahay sheeg culimaa udiin kala duwan ay akrinayaan min 2 saacadood min 1 saac iyo bar soo qabso habeenkii intaa guriga joogtid muxuu ahay sheeg haddaad seexanaysid intaa music shidan lahayd qur-aankaas shido dhegeyso ku seexo markaa 3 habeen aad qur-aankaas dhegeysatid waxaa kusoo laabanaysaa jawigaaga caadiga ah waxaa bilaabaysaa inaad waraysi hadda tusaaleahaan ani ninkan xitaa mararka qaarkood 3 maalin 4 maalin marka culeys aniga iska dareemo aan shito kadib shaqooyinkaan kusoo laabanayaa dhaqdhaqaaqiyaan bilaabayaa maxaa layga ilaysanayaa ninkagan caloosha deystay muxuu aanu quruxda lahayn ee aanan dhaqaalaha lahayn waxa laygu ilaysan karo wax kale ma ahan markaan youtube-ka fadhiyo waa qoslaa okay qosolkaasaa laygu ilaysanayaa tusaale ahaan qosolkaas laygu aan eedo wax kaloo eedaa balaa marka qosolkaas aan eedo waa inaan qur-aanka dib ugu laabtaa aan dhegaystaa aan ku nastaa aan ku seexdaa 4 maalmood 5 maalmood markaan aan dhegaysto qur-aankii kadib dhaqdhaqaaqiya bilaabaysaa dad badan oo saaxiibaday ah waxaa jiro culeysyo noocaas ay haystaan oo ayagiyo fursadii haayo wax badan qabsan karo dada kaamirooyin gurigu yaallo youtube xayeysiin u saaran tahay ama shaqooyin kale qabsan karo haddana inay qabsadaan ma rabaan wax kale maahan ilaa idinku dhacdo saaxiibayaalow qur-aanka dhegaysta wax kale aan idinma haayo lamaanayaasha kala faniinaya wax kale maahan waxaa soo bandhigaysiin wax badan dada idin daawanayo koronta qosolkiisa lagu haystaaye adig intay joogtaa marka oo gabar qurux badan iyo wiil qurux badan muxuu ahay sheeg youtube soo fariisateen ama marka hore iska daaya oo macnaha imaanina oo dadka isbarina oo waxa idin haysto saaxiibayaal ee u kala cararaysaan ee u kala tegaysaan wax kale maahan qur-aanka dhegeysta mar allaala marka aragtaa culeysyo inaa xoogaa ay gabadha soo bilaabayso ninkana oo xoogaa uu soo bilaabayo inta aynan bulshada kala gaarinba adinka ay aragtaan in xoogaa aadan isku fiicnayn oo farxadiina ay sii nusqaamayso isku daya inaad qur-aan aad isku aqrisaan haddaa culimo heli kartaan aa u yeerataan haddii aad muxuu ahay youtube-ka aad kasoo degsan kartaan inaad kasoo degsataan inaad qur-aankaas aad dhowr habeen aad dhegaysataan kadib waxaa idin aad ogaanaysaan in muxuu ahay sheeg aad bilaabaysiin ma ballan qaadayne laakiin 100% waa ku kalsoona haddii cuyuuna ay kugu dhacdo qur-aanka alla subxaana watacaala ayaa dhacdo waxaa arkaysaa gabar laga soo kor qayliyey oo laleeyahay gabadhan muxuu cuyuuna markii horeysa ku dhacday si meeshay gasho ayuu il jinnina galaa wax kale maaha marka gabadhan qur-aankaas unbaa ka adag cuyuuntan qur-aanka ilaah subxaana watacaala ayuunbaa ka adag marka inta waxaan oo dhan cabdiqaadir arrinta kaloo jirta waxay tahay horta gabadha markuu wiilkan soo guursado talooyinka aan rabno inaan la wadaagno waaye dhalinyarada anaga waa duqownay oo muxuu ahay sheeg cabdiqaadir oo dowladda maxamed siyaad bare arooskiis ugu horeeyay uu dhacay ayaa meeshan meesha qorata taariikhda yaqaanahay horta gabadhan subaxii lagugu meherinaayay ama xilligii lagugu meheriyey ee mas-uuliyadeeda aa qaaday ayaa waxaa ku fuulay markii hore hooyay aabee la joogtay tusaale ahaan sida dhaqanka aan ku naqiinay laakiin adigaa lasoo wareegoo gurigaaga imaatay cabdiqaadir gabadhaas sida adiga aad u bilowdo wadada adigaa u furtid ayay raacaysaa haddaa adiga markii waaga uu baryo salaadaadi subax aad u istaagtid muxuu ahay sheeg qofkii kusoo booqdo aad muxuu ahay sheeg si wanaagsan oo caadi aad usoo dhaweysid jawigeeda iyo jadwalkeeda adigaa sixi kara haddaad saxdid way saxmaysaa inkastoo gabdho badan oo ayaga wax saxa ay jiraan laakiin haddii ka waran gabar saaxiibta aad ku imaatay hab intaad siisid xaaskaagan intay fadhiiso aad labada dhinac mac ka siisid fadhiga aad geysid dhabta aad saaratid waa ujeedaano ayadana koo imaana ayadana waa qabanay kadii laabta la gelinay ilaa adaa u bilaabo wadadaada u furay mugta waa waday babligaa geysay xafladaa geysay aroos ila neyki ila dheelaa dhahday ayadana muxuu ay sheeg
too saaxiibta adig gacanta kasoo qabsata iyadana koo saaxiibkeeda gacanta kasoo qabsanay marka wadada ragga ay furaan ayaa u furan gabadha mar allaala markii guriga la keeno adigaana ka dhigi kara gabar wanaagsan oo muxuu ii sheeg reerkeeda dhaqanayso adigaana fasahaadin karo waana aragnay dhalinyaro fara badan oo aniga koronto ahaan aan goobjoog u ahaa ayagoo wanaagsan lasoo guursaday kadibna ninkii uu muxuu ii sheeg wadooyin qaldan uu tusiyey marka bointigaas oo ku aadan in ragga ay dhinacaas ay ku dadaalaan bointiga labaad wuxuu yahay keliya ma ahan in gogasha nin inaag ay micnaha ku yihiin nin inaagtiisa waxaa jiro waxyaabo badan oo calaaqaada oo nolosha iyo farxadda iyo jacaylka iyo romantiga lagu sheegaya dad badan horta waxaa umalayan gogasha inay tahay saaxiibayaal ma ahan waxaa loo baahan yahay ninkii naagta markay wada joogaan qalbiga bini aadanka wuu wasaqoobaa marka uu wasaqoobo ooma iyo saabuun inta lasoo qaato lama dhaqee waxaa lagu nadiifiyaa toddobaadkii hal habeen haddaad fursad heli kartaan haddaad fursad u heli kartaan ka badanna waad samayn kartaan in toddobaadkii hal habeen aad samaysataan oo aadan isugu imaanaynin afaaro kale aada isugu imaanaysaan inaad arrimihiina ka sheekaysataan noloshiina ka sheekaysataan jaceylkiina heerarkii kala duwanaa ee soo maray maanta xaggee joognaa maxaa qaldamay maxaa saxmay bal ka waran gabadhaas iyo wiilkaa hadday habeenkaas sheekaystaan oo wax badan ay ka sheekaystaan oo noloshooda ah ayadoo faraxsan ayay seexanaysaa asagoo faraxsan ayuu seexanayaa laakiin haddii toddobaad aan la kulmin toddobaad kale aan la kulmin inta sariirta la isugu imaado muxuu ii sheeg labada dhinac loo sii kala jeesto bil ay dhammaato 2 bilood ay dhammaato nin la yiraahdo shaydaan uu shaqaysanayaa shaqadiisa kama habsaamo muxuu ii sheeg wax kale asagana kama shaqaynayo waswaasil qanaas ayagana way sii jiraan oo waxay ka shaqaynayaan ninka waa ku naca wallahi bilaa xabadii maalmahan saan waaye kan waaye waxaas oo yani kan waaye ninka saan waaye wax kale laguma dhaqi karo ayagana waa in labada qofood ay isku imaadaan ay wada sheekaystaan ay ka sheekaystaan noloshooda iyo macnaha afaarahooda gaarka ah labada qof hadday wax kala tabanayaanna si hoose ayaga ay u dhamaystaan waxaa su-aal weydiinaa horta ninkan ay naagta ay isqabee social median say ku ogaadaan waa dee marka hore social media ay kusoo bandhigeen ama jaceylkoodii iyo guurkoodii iyo waxooda idil ay kusoo bandhigeen marka noloshooda dhan oo macnaha tii guriga caadiga ahayd ayaa inta badan waxaa ka warhaya waxaa ka soconaya dadkii caadiga ah sida macnaha maanta in guriga wax lagu soo kordhiyay maanta sariir lasoo dhigay inay jiif keensadeen inay fadhi keensadeen meesha ay maanta tageen suuq hadday ay mareen noloshooda idila marka meeshaan joogto marka haddii daqiiqad laga waayo ama 2 maalin qofki la waayo qof kale la weydiinaa aawo hebel maxaa ku dhacay ilaa marka dambe la ogaado oo su-aalaan tirada badan ay yimaadaan oo ay sheegaan ama waa kala tagnay ama dhibkaana jiro marka hore noloshooda ku beesgarayaan in meeshaan laga arko taas jawaabteedu waxay noqonaysaa sirtii loogu talagalay labada lamaane inay u qarsoonaato ayaana u qarsoonayn oo bulshadii macnaha ii sheeg iyo dad aan loogu talagelin inay wax ka ogaadaan ayaa lagala sheekaystaa marka dad aan loogu talagelin lagala sheekaysto ayaa social mediaha ay gaaraan arrinta kaleo iyana muhiimka waxay tahay saaxiibayaal waxaan aragnaa aniga waxaan ahay dadka inta badan daawada facebookyada youtube-yada social mediaha waa indheeya waxaan arkaa youtube-yo badan oo waxa la sheegaayo oo ka hadlaayo xog uma hayo wuxuu arkay youtube qof ku dhegan oo arkay ay isdagaalsan yihiin ama muxuu ahay sheeg xurguf iyo wax ka dhaxayso warkaasoo soo qaadana ama arrintaasoo soo qaadana sidii inuu asaga u yahay goobjoog oo dhacdadaas iyo waxaasuu xog u haayo ayuu qofkaas qabsanaya uu galaya hana abuukar gabadha la yiraahdo waxaan arkayay toddobaadadii lasoo dhaafay oo dhan youtube-yo muxuu ahay sheeg intaasoo xog ka faafinaya annaga waa faafin lahayd waana faafin karnaa laakiinse ciddii la dhahaya xitaa way soo hadashay lagu eedeynaya way soo hadleen muxuu ay sheeg arrintaas waxba kama jiro annaga waa nool okay dadkii marka faafiyey in macnaha ay sheeg hana abuukar ay ilmaha xado hana abuukar inay muxuu ay sheeg keliyaha la baxdo haddii ay xaqiiq tahay waxaas way soo cadaanayaan markaas ha laga hadlo adiga social media ka shaqeeyo saaxiibayaal qayb ha ka qaadanina burburka qoysaska Soomaaliyeed burburka dhalinyarada Soomaaliyeed waayo waxa idin daawanayo waa bulsho Soomaaliyeed waxa daawanaya gabar guurdoona waxa daawanayo waa wiil guurdoona
runtii dadkan kala tagayo ee dadka social media lagu soo bandhigayo burburka qoysaskooda waxay niyad jab ku noqonaysaa wiilkii gabadha mustaqbal doonka ah ee daawanaya social media in allaala intaad qarin kartaan walaalayaal qariya in allaala inta aad ka digtoonaan kartaan sirtii muxuu ahaa ii sheeg nin inaagis qabo waxaa la dhahaa diinta islaamka waa waxay isku yihiin maro sida maro oo kale labadii marada lakum wa antum libaasun lahunna dadkii sidaa isku ahaa maanta hadday kala tagaan hadday social media mid walba uu soo fadhiisto war muxuu sheegi karaa qofkan waxa dhan nolosha qofkan noloshiisa dhan ayuu war ka hayaa qofkan sirtiisa dhan uu hayaa okay haddii waxbaan sheegayna aan dhahno ee gogosheena aan ka hadalno runtii waa dhibaato waxaa isku daydaan 100% inaydan niyad jabinin wiilkii gabadha guurdoonka ah in cuyuuni hadday jirto aad qur-aanka ilaah subxaana wa tacaala aad dib ugu laabataan aad dhegaysataan waa hubaal shaydaanka uu ka caajisinayaa wuxuu ku leeyahay muxuu ahaye sheegor il kuma haysee waa kaasaa markaasaa waxaa arkaysaa ninkii dhan oo reer shaqada ahaa asoo laadhuu qarrac qururuc ka siinaya war ninkaan laadhuugi dheelaya muxuu amuu shaqaysto cuyuunaa ku dhacda qofkan inuu qur-aan saaro maalmaha qaar hawaakan uu ku qoslaayo maalmaha qaar shaqo dhan ma raban oo laadhuu waa iska dheelaya aniga oo aan dareemayo culaysyo fara badan inay jiraan marka aan fiicnaadana leeguma karo kaala seexo kaala nasal leeguma karo qof intaa wuxuu kan intaa wuxuu waraysi diyaari barnaamij diyaari shaqo ayaan usoo jeesanayaa marka dardaaranki hadi waxaan kula dardaarmay horta cabdi aan la hadlay maanta dhani waxaan kula dardaarmay inta kale idin sheego waa rasmi caadi iska dhiga waa soo gabagabeyna waqtigan adiyo ma dhaqay qadka la hadla waya inta ay soo gabagabeyna saaxiibayaal dib u kulmi doona dhamaanteed isku duuban waxaan idin ku dhaafeynaa sida ay nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh